iyadoo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si rasmi ah u furay kala fadhiga ugu dambeeyay ee labada gole ee dalka ayaa xildhibaanadii kulanka soo xaadiray oo iskugu jiray labada gole ee dalka waxay si wanaagsan u dheehdeen una dhageysteen khudbadii madaxweyne Farmaajo balse xildhibaano farku tiris ah oo jaranjeera dhinaca dowladda Kenya isla markaana baarlamaanka u jooga ayaa damcay inay qalqal galiyaan khudbadda dastuuriga ah ee madaxweyne Farmaajo inkastoo madaxweynuhu uu si dadban xildhibaanadaas ula hadlay walow markii dambe xaaladdu ay qabowday xildhibaanada ayaa wararku waxay tilmaamayaan inay gaarayaan ilaa 15 xildhibaan waxaana soo baxaya warar sheegaya in dowladda Kenya ay doonaysay inay qalqal geliso khudbadii madaxweyne Farmaajo xildhibaanadaas waxaa kamid ah xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil xildhibaan Xasan Yare oo ahaa ninkii firimbiga ku dhaxyeeriyay kulanka golaha shacabka inkastoo madaxweynaha jamhuuriyadda uu sheegay in shakhsigaasi uu yahay shakhsi aan hadda looga baahnayn golaha shacabka